ku soo dhawaada kanaalka looga hadlo qoyska iyo galmada xalaasha ah. Waxaan ugu talagalnay dhakhtarka weydii iyadoo emailka ay naga soo weydiiyeen qoysas fara badan ama gabdho fara badan oo walaalaheena qoysasa xaasasa iyo rag fara badan oo walaalaheena ay su'aalana soo weydiiyeen ayaan kala xulanaynaa. Su'aasha koowaad iyo su'aasha labaad iyo su'aasha saddexaad intaanan gelin kanaalkan waxaan ugu talagalnay dhakhtarka weydii dhakhtarka qoyska oo looga hadlayo galmada xalaasha ah. waayo gabowga ku yimaada dumarka ayaa targetkeena koowaad ah iyo gabowga ku yimaada ragga galmada sameeya galmada xalaasha ah iyo habka ugu fiican oo galmada loo sameeyo qoyska isqaba. kanaalkan waxaa kaloo looga hadlayaa in qoyska isqaba siday ugu noolaan lahaayeen nolol qurux badan farxad badan. marka waxaa laga rabaa dadweynaha oo dhan share subscribe iyo like inay wada saaraan kanaalkeenan oo ah kanaalka caafimaadka qoyska oo loo sameynayo loogu talagalayna dadweynaha Soomaaliyeed oo qoysaska inay ka faa'iideystaan. waana sidaas kanaalkan waxaa ugu talagalnay in la share la sameeyo share la gaarsiiyo meel walba. kanaalkan wuxuu noo horumarinayaa qoyska horumarintiisa caafimaad qoyska isqaba ayaa loogu talagalay. emailkana shaashadeena ayaan kusoo qoraynaa halkaas ayaa nagala soo xiriiri doontaa. marka gabadhii koowaad ee nala soo xiriirtay oo na soo weydiisay barnaamijkeeda caafimaad gabadhaas walaasheena magaceeda lama sheegayo halkan waana su'aashii jawaab ku habboon ayaan ka bixinaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan. wiilka kale walaalkiin ahaa oo asna qurbaha ku noolaa oo ka cabanayay himid yaradiis haysata asigana tala caafimaad ayaa la siinayaa. waana kanaalkeenii ku saabsanaa caafimaadka qoyska Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin qoysaska in loo turxaan bixiyo galmooyinka xilliyada ugu fiican ee la sameeyo. marka kanaalkeenan waxaan ka helaynaa caafimaadka qoyska. marka waxaa la rabaa dadweynaha Soomaaliyeed inay share like iyo subscribe ay soo saaraan. haddana waxaan soo gelayaa su'aasha koowaad oo gabadheena soo weydiisay oo ahayd ninkeyda mar alla markii gogosha uu yimaado ayuu ka damaa. taas ayaan tala bixin ka siin doonaa waana muhiim jiddan taas inaan wada aragno